waa baarlamaankii sida ay u leedahay federaalku baarlamaan maamulgoboleedkuna baarlamaan ee degmadii waxa looga dhigay baarlamaan 12 xubnood waa baarlamaanka degmada matalay degmadana waxa degan bulsho kala duwan oo degan oo Soomaaliyeed halka marka waxa jiray odayaal 12 ah iyo 25 ah oo uga isku hogaaminaya oo degmadan masiirkeeda iyo magaranaysaa hoggaankeeda hayay waxaan ogtihiin 9 bilood iyo 20 dhowr cawo 25 cawo ayaa barnaamijkan xiriirayay waxaa loo gudbiyay odayaasha deegaanka ugaasiyada dhammaan baa loo gudbiyay waxaa loo gudbiyay markii dambe xal waxay u arkeen arrintan sida ugu fudud ee loo qaybsan karo hawshan ay dadkaas ku qaadan karaan oo hawsha ku dhaqaaqo tawaasideen looma eegin qabiil looma eegin wax kaleeto sidii hawshaas u dhaqaaqayeen ani aragti ahaan waxaan qabaa haddii laba shan kooylaatan hadday noqoto hal beel oo kooylaatan hal beel noqdaan inay hawshaas u qabsoonto waayo waxa iga xayran ayaa ka tira badan qofka hadda laga dhigo kursiga fariistay asagoo ma mushaarkiisa qaadanaya laakiin waxa iga macno badan inaan helo waxbarasho lacag la'aan ah caafimaad lacag la'aan ah wadooyin mashaariic aan ka shaqeyno horumarka bulshada dhan baa ku xiran barnaamijkan ma aha marka wax ku salaysan yaa tiro badan yaa magaciisi ah waxa ugu fudud waa la yeelin dadkii waxa qabyaalad baa saameysay wariyaa maanta waa arrintaas hogaamin kara oo bulshada wax ka bedeli kara sida ugu habboon oo barnaamijkaas maanta lagu bedeli kara waa kaa laakiin cadiifad iyo qabyaalad baa waxay dhamaysay Soomaaliya ilaa federaal ilaa maamul goboleed ilaa heer degmo ayaa waxay taagan tahay in lagu qaybsado qabiil wixii la soo dhexmaa hay'adda keento oo maanta ay raashin keento waa camuum dadka qaxootiyaasha oo baahan laga eegayo yaa baahan lama oranayeen warnoo qaybsha sida loo qaybsan jiray loo qaybsha la oranaya taas marka waxa keentay waxa ugu fiican oo ugu habboon waxa weeye inta la sameeyo degmadan yaa barnaamijkaas maanta samata bixin kara oo cadaalad samayn kara 20 nin oo isku nin ah hadalin haday rabaan noqdeen oo aqoon u leh qorshaha waa systemka dawladnimo oo federaalka la qaato wasaas laakiin heer ahaan xagga wax noo dhiga iyo xagga wax noo dhiga midna ma ku shaqeyn kartaa waa maasanta marka waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo Bashiir Marabare waxaad ka mid tahay golaha guurtida degmada iyo nabaddoonada deegaanka waxaad hogaamisaan bulshada caawin waa ku nool muddo la soo hogaaminaysa haddii bulshadu aragti ahaan ay kala gedisanto oo fikrado kala qabaan idinkuna aad tihiin marjac aad idin doorteen maxaa idin diiday in aad xubnihiina golaha guurtida halka bulshadu ay rabto oo dadka ugu jirta idinkoo dan gaara iyo dan shakhsi midna eegaynin halka deegaanku meeshu ku jiro inaad inta isku timaadaan oo isku raacdaan aad soo fadhiisataan oo hor keentaan oo kaadaan bulshadii annaga golo guurtay waxaan isku raacnay sida wax lagu maamulo bismillaahi rahmaani rahiim marka hore nabaddoonada beeshan degmada Caabuda waxna waa geedto waxna waa guurto oo geedka ka gaara fadhiya marka ugu horeysa kuwa 12 oo aad sheegtay oo degmada taladeeda loo aado waxay ku kul daraysteen xabaal loo idmay shimbir baa yimid Caabuda nabadgelyo wada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga hogaaminayay ahaayeen meeshuu marayba meeshii nabiga calaan ku maray bay noqotay laakiin dadka halkaa jooga waxay qabteen wixii loo fariisiyay waxay ahaayeen xaquuqdii kala gaadhay beelaha mareexaan inay u kala qaadaan baa loo aasaasay oo loo keenay lama sheegi karo laba beelood oo ay caafimaadiyeen oo kala magsiiyeen wixii loo geeyay saasay ahayd waxay la dhaqaaqo weydana waxay ahayd afarwaaxood iyo cudurku xambaarsanaa iyo qabiil ayagoo horta 12 waxay soo bixiyeen oo ka taliyeen afarwaaxoodna ku dhisi mahayaan dalka la yiraahdo deegaanna xaq ugu qaybin karaan waxaa u diidaya
cadiifadii markii hore beelahaas sababkii isku riday dad isjecel bay ahaayeen garashadoodii iyo maskaxdoodii iyo cadiifadii ku jirtay iyo qabyaaladii bay ahayd cudurkii laga daaweeyey oo fariiste la yidhi adigu beel maydina mareexaan baa tihiina nin walba wuxuu geedka la fadhiyey wuxuu beel ahaan markay bilaabaanba qabiil iyo qabiil bay ka bilaabayeen shaqada taas horta waa lagu guuldaraystay xalay ayagu keeneenna degmadan ku hormari mayso bal ayaga waxay mudan yihiin beelihii inta maqan in laysu keeno si layskaga waardeeyo ayagaa iswaardeeyay 21-kaada kuwa kale oo ka maqan beelahooda inay dhibaateeyaan baynan meesha u fadhiyaan waxba uma qabanayaan waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad tiri xal dadka deegaanku ay doorteen iyagu hadday xal keeni waayeen oo iyagii ay weli kala jijibsan yihiin maxaa diidaya inta laga helayo tala dadka deegaanku ay u midaysan yihiin nidaamkii hore oo dadku ay ku qaybsan jiray in wax lagu qaybiyo ama lagu sameeyo waxaa diiday xolaan hadda taagan koox yar oo isxulatay oo aan beelihii mareexaan laga soo qaybgelin oo cuquladoodii laga soo qaybgelin oo ganacsatadoodii laga soo qaybgelin oo dhalinyaradoodii laga soo qaybgelin oo aqoonyadii laga soo qaybgelin yaa waxay isu bahaysatay xil ayagoo doonaya kii awal ku boobay wasiirka boobka kaga qaatay galmudug kii kaga qaatay iyo mid xil raadinayo hadda leh armu kuu siixaa 2 nin waxaa keenay dhibkaas waxaa keenay in la boobo waxaa xal u diiday in la boobo xal waxaa u sokeeya barnaamijkan dowlad galmudug la yidhaahdo maamul galmudug yaa dhismi doona xalkiisu waxaa weeye wuxuu jiraa in la laalo saan dadku hadda isu dilay oo nabadgelya in hadda la laalo markii maamulkan dhismo wasaarad ayaa arrintaas shaqo ku leh ayadaa wada macluumaadkii wax lagu dhisi lahaa iyadaa dowladda awood leh dadkan wax marorsanaya oo dadka ka soo dhexbaxay oo waxba weydiinay waxaan bulshadu inay islaysa ahayn oo awal dhibti ay qaybsatay ku keliyaan ma keeni karaan waxaan ku tala bixinayaa oday Soomaaliyeed baanay waxaan in la dhigo dadka u qaba 105 ergey ku xaraystay mareexada waxaan iskaga imaan inay ka bixiyaan raaligelin waraaqahaasna banaanka ay ku gubaan aad oo maasanta waxaan markaan fiiriyo Sheekh Liibaan waxaa jirta in haatan muddo bulshadii markii samayntii golaha deegaanka wuxuu ka horseeday in ammaankii magaalada khalkhal uu geliyo waxaa kaloo jirta waxaa socota dhismo galmudug oo doorashooyin baa waxay ka socdaan dhulsamareeb maxay kula tahay haddii dib loo dhigo arrintan inta xal laga gaarayo oo galmudug ay dhisanto oo kadib wasaaradihii ku shuqul lahaa ay yimaadaan waayahay bismillahi raxmaani raxiim nadaara aad baad u mahadsan tahay su-aasha shaqdiga haddaan kaaga jawaabo horta barnaamijkaani sida loo sheegay waa barnaamij hay-adi keentay injirada la soo marisay waa barnaamij qeyd iyo taariikh leh waqtigiisa hadduu dhaafana wuu laabanaya hadduu laabtana deegaanka waxweyn baa ka laabanaya waxaa laga yaabaa 5 sano dambe inaan deegaanku dib dambe u arag barnaamij kula deegaan ah waxaa soo haray arrinta dowladda maamulka galmudug laga dhisay horta galmudug haddaba maamul baa ka jira wasiiradii iyo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ilaa lagala wareego iyagiibaa dowlad ah iyagaa sharciyan dowlad ah iyagaa shaqadii buuxinaya maalintii iyaga ciddi bedeli lahayd la doortana iyagaa marka xafiisyada wareejinaya waxaa soo haray hadal hadaayata ahaa konsalka hay-ad baa wada laakiin inta kale soomaaliya waa laga warqabaa wax allaa wax ka socda qaramada midoobe baa wada wakiilka qaramada midoobey riboortka u gudbiya waad aragteen hadday tahay raashinka qaxootiyada la siinayo hadday tahay dowladda xataa xildhibaanada soomaaliyeed dhaqaalaha UNDP waa ka bixisa doorashada soomaaliya hadda 2020 ka dhacaysa qaramada midoobe qarashka bixinaysa laakiin waxaa la isku waafaqaya soomaalidu taala konsalku golo deegaan waa sax golo deegaan ma u bislin sidii loogu talagalo sharciyan ah ma u bislin dadka saaxiibada hadda ku doodaya golo deegaan
سأقول ما يحضر كذا هذا كذا عن كرتان وحيروح أنا سيني برامبر ودقمة كميدة صومالية ودقمة إلى هاي دشية ودتها إلى الدقية هاي وحيحقوا لي هنا الإسلام كونسل هذا عوضة وحكة دقية هنا كتب جرام بيحقوا لي وحاجتي خلق النبي عليه الصلاة والسلام ضدك الفقراء هذا النبي قوي معي رسولك إلى هذا ضدك حوار الله ونجا جبتين وحنا صلاة تكون هو تكدان صومك وانا صومان وحنا سمين كريم بسميان حج كي آدم زكاة البحيان محيرنا وقلب حماضين وحي صلاة ومركة تكدان صدر يصدق قول سبحان الله لها صدر يصدق قول الحمد لله لها صدر يصدق قول الله أكبر لها بقول واحد كتاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل كان عصتها بقالها يسوي مغلا ولا يري هذا انتينا وسؤال الله بتاع واحد رسولك إلى انتينا ولا يري هذا وحوي ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء أنت سوى فضل إلهي معد الربصية نك وراك وقرب الله قال الله بسيه عبد الله كل ذكر إلى الحنسة وحكمة الله إلهي بطاسية ودجية وكفر أحسن معي تنال قيمتي سكاكات حقوا لي وحصوها dad kaanu waxay ka xisaabtamayaan annagu aan kuraas badanno ma aha inay u doodayaan dad deegaanka masaakiin oo jooga ma aha deegaamada laga baxsano noo yimaadeen u doodayaan xaqiiqata hadda ayaga haddii loo dhiibo saaka oo isku raaco la soo hagaajiya lama soo iyaga dhex bilaabanaysaa waa dhowtaan nin waxaan ku yidhi wuxuu yidhi guryo baa la tirinaya waxaan ku yidhi guryaha haddii la tiriyo reerihiiba guryaha rabaa laftigoodaa sii kala guri badanaya jibajibay sii noqonaysaa waxay noqonaysaa inay guddoomiyaha hal jifo oo reerka ka mid istaasho oo ku gura ay yeelato inta kalena aysan istaagin oo midabta koorkaas u dhaco waxa adduunka yidhaahda ma jiraan waxaa markaan warkayga kusoo gunaanadaya intaan ka bixin waxaan kaa rabaa hal su-aal cidda hadda wada samaynta golaha deegaanka waxaan ognahay in mashruucan loogu talagalay in la sameeyo wacyigelin dadka in laga dhaadhiciyo fikirka ah golaha deegaanku waxa uu ku salaysan yahay iyo waxa uu meesha uu ka socdo bulshadii oo haysata wacyigelin iyo waxa uu ku saabsan yahay oo fikirkiisa ka haysata in loo sameeyo haddii bulshadii marka hore aan la ogeysiinin waxa uu yahay golaha deegaanka oo dadkiiba qofna ku leeyahay guri baa la tirinaya qofna ku leeyahay waa degmada cawdooda iyo deegaanadeeda miyaa la isdhihi karin xilligan bulshada waxay u baahan tahay in la wacyigeliyo oo la sugo oo dib loo dhigo intii dhibaato ka imaan lahayd oo hay-addii iyo wasaaraddii barnaamijka waday way gabeen maxay tahay sababta xilligan inta dejinaysa walaal horta sidii ilahay qoran golaha deegaanku cali khalif galeed baa waagu ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi xamar waxaan ka soo bartay cirka soo degay meesha ka gashaa gagelin horta macnaheedu maaha golaha deegaanka in la waado in annaga balaayo gaara u dhacayso annagu bulshada ka mid nahay keliya waxaa naloo kala calamaynaya koox leh waxaa la dhiso deegaanka la hormariyo iyo koox leh iyo wax la dhisi ayagu sayra wax u doodeen labadaba baa naloo kala calamaynaya laakiin deegaanka hadduu golo deegaan helana dadka ka mid nahay hadduu golo deegaan waayana dadka ka mid nahay waa soo wacyigelinta hal sano oo hal bila dhiman baa konsolka barnaamijkiisu yaala ugaasiyadii baa ogolaaday golaha hadda deegaanka oo nabadoonbashir ku dheeraada dhalacayntooda 17 xubnood baa ogolaatay 2 xubnood kala ku biirtay 19 xubnood baa ogolaatay aqlabiyadu wey waa dadkii farmaajo deegaankan qasab magacaabay waxay rabaan batabartooda qabteen intii farmaajo magacaabay dhib ka dhacay oo dalka dambeeyay maba jirinba dhibkii ka dhacay gacanta lagu qabta marka deegaanka waxaa laga fiiriyaa guurtida aqlabiyadeeda waxaa laga fiiriyaa ugaaska waxaa laga fiiriyaa bulshada dhalinyarada ah annagu cidda wax diidan mayno waa dad yar iyo waa dad kan ay wadada ka mid ah deegaanka aragtida aad u baahsanta waxaan rabaa inaan cabdinaas hal su-aal weydiiyo barnaamijkan waxa uu soo maray heerar kala gedisan waxaa ku xaniban mashruucyo badan oo magaalada laga hirgelin lahaa waad ogtahay degmo walba soomaaliya maanta waxay raadinaysaa sidii ay u heli lahayd ismaamul horumar dhismayaal amni iyo nabadgelyo mashruucan hadduu hirgalo waxaa helaya shaqo dhalinyarada waxaa imanaya hayado waxaa imanaya dadka deegaanka aan imaan jirin oo mashaariicyo ka fulinaya
waxaa hay-adu soo furayaan bajeedyo kala gedisan haddii la socodsiinayo oo wax bulshadii horumar u keenaya uu yahay sidii doonaa lagu socodsiiyey maxaa hortaagan بسم الله الرحمن الرحيم وعاول والله المدارة حتى سؤال كجوابه ورت برنامج كان كونسل كا أننا كبارتي أهان ذكر يدون هاي وديجان كا ودون هاي إن حتى جاوا حروس سريو وتأنا كونسل كمديدين وسود ويننا هرمر كيسة يو مارتي وها وهرمرنا هايو يو وها لفايل هايو intaba annaga maaragtay u bisil oo u diyaarsan oo doonayna rabitaanka bacda wixii haddii qatartoodii badan tahay faa'iidadoodii iyo qatartoodii baa la isbarbar dhigayaa haddii qatartii badnaato wixii in laga fiirsado oo laga tala buuxsado oo dib loo dhigo oo waqti la siiyo ma huraan haddii maanta la yidhaahdo ha lagu degdego oo konsulkii hore ha laga dedejiyo oo hala sameeyo dadkii deegaanka u badnaa oo maanjooratigiisa ahaana ay diidan yihiin oo ay leeyihiin war sidan laga daayo si cadaalad ku jiro oo konsulku ku soo baxay waxa lagu saleeyo haddii la yiraahdo ha lagu dedejiyo jeegada ha lagu qabto waxa weeye qatar baa ka imaanaysa dhegeysi wax yar qatar baa ka imaanaysa dib badan baa ka imaanaya waxa weeye fidnay kicinaysaa fidnadii marka hadday imaanayso in wixii dib loo dhigo oo laga fiirsado oo laga baaraandego oo waqti la siiyo ma humayso waxaan kuu soo hadhay walaalkii su-aashiisa waxaa ku jiray dadkan waxa weeye dad bay ximanayaan dad maaragtay reer balambal bay diidan yihiin xaggay diidan yihiin xashaalena ma diidan reer balambal walaalaha iyo weye dad nala dhashay weye reer balambal dadka deegaanka nala degan weye waa nala degan yihiin dadka hadda garab ahaan dadka iyaga mabda'a deegaanka taageersan dadka nala socda dadka hormuudka waa weye waxay doonayaan xaquuqda balambal ay ku leeyihiin inay qaataan عاوضة كل يوم هنا هلا تاسع وتاعي هرمون دويه أنا ما بدي أهرني واسلاس وحنا نغفر أو مواطن أو صومالية والدجان كان دجان قلنا مدور هذا قلنا قالوا ريح هنا متجرو قلنا الصوماليين أو قلنا الدجان كان من 10 كم ريح هنا متجرو قلنا مربوط حنا إلى هلا حموضة إلى هلا أنا نقول فدنا ولا دولينا أوكي هل بدأ بينه وبين ناس وحورت لو أرديو وكوبي لما تكون له bulshadu haddii 21 xubnood la sameeyo oo barnaamijyo kala yimaadaan qofkii iska dhex arki waayay 21 xubnood mashaariicyo kale iyo horumar kale oo baarlamaankaas la doortay ay u dhiibaan oo ay siiyaan oo ay ka qaybgeliyaan xal ay u arkeen inta laga gaarayo xal la isku midaysan yahay oo la yiri waxay imanaya mashaariic waxay imanaya barnaamijyo badan aysan qasab ahayn sida hadda aad sheegayso haddii yidhahda deegaanka lagu qaybiyo au shabeelle sheegay inaan xilliga laga gaari karin haddii xal la biday in 21 xubnood